السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قاليقا كسو دوادا مقال عصبي كانالكينا كيدك إفيه فضلا هدو مقالك كو عصبي مقالك لايك راي هادو فيديوغان كو هوري داوانا سنة سبسكرايب سار جانالك هدو سبسكرايب كو اهان او ركوما سي ادو هشو مقالك كو حيسا قليا فضلا وشير قليا صاحبك ااقا جعلينو كفايديستو لايكتن ومنو مهم مقالك سرا ايو قاديسا فضلا حكا عطنين انان لايكتن نغا بقيلين او لايك انو سارتا ان شاء الله. marka maanta waxa waa taariikhda almost taariikhda aan isla eegno waa 29 October maalin talaado ah waa maalinta labaad ee isbuuca suuqu furan yahay. So inta ayaan qaadanay inta quruxda badan ayaan qaadanay reasonada ku qaadanay insha Allah iyo rulesyada aan ku qaadanay muuqaalkan ayaan ku sharxi doonaa muuqaalkan oo dheeraad ma rabo. So waxaa idin ogeysiinaa group waxaa leenahay Telegram ah oo xogag badan aan soo dhigo. So videoyada waxa waa YouTube waxa waaye waa maalintii hal video camal aan iska soo dhigaa laakiin Telegram kaas waxa waaye waa jatin asxaabtu isku ra'yi wadaagnaa isku ra'yi wadaagnaa meeshaas waxa waaye dad badan joogo marka sida ugu soo biirta insha Allah muuqaalkan commentigiisa ugu horeeya biina saaran commentiga ugu horeeya soo raac linkiga ama descriptionka videoga hada descriptionka ku wararto commentiga tag commentiga ugu horeeya biina saaran soo commentigaas ka soo raac linkiga groupka Telegramka insha Allah sidaas ugu soo biir aad oo mahadsantahay. Okay trade kan wuxuu noo baxay saaka xilliga London session oo noo baxay laakiin London ma aysan furmin soo shifting ugu dhacay waxay ahayd 2 saac ee bareed ahayd xilliga oo Judas Swing ee dhaqaaq been guurka ahayd. So waxaa la active gareeyay adiga iyo 40 meelahaas 3 saac oo dhimna la active gareeyay. So inta drawdown wax yar lagu qabtay wada almost 2 bib camal ama 1 bib iyo 8 camal 1.8 bib camal lagu qabtay wax problem la waxa waa almost direction ka aan u dirna ayuu suuqa aaday. Okay aan tagno horta before and after maxaa dhacay anaga adar ICT9 waxaan isticmaalnaa xeer la dhaho before and after. So qofka aanan isticmaalin waxa waaye trader sax ma ahan waa waxyaabo isku soo sawirto waa fahmino. So hada 4 hour ka waaye so kan ma ahan sorry this one araba 4 hour ka waaye 4 hour ka laba qodob ayaan u aaneynay laba qodob oo aaneynay. So buy inoo bixi doono oo ku xisaabtamayay marka value gap ka muu ka bixi doonaa oo 1 hour value gap ka muu ka bixi doonaa ama wuxuu ka bixi doonaa order block gas oo ka bixi doonaa oo 4 hour ka sorry 1 hour ma ahan this is 4 hour value gap. Yes, this is 4 hour value gap. 4 hour value gap ka muu ka bixi doonaa entry-geena ama 4 hour order block gan muu ka bixi doonaa labadaas qodob ayaan u aaneeyay. So mar value gap kan ku aadiyay jeedaan labadaas reaction aan ka suganaa CRT hala sameeyo and the reaction buy high no dhac waa meel discount area okay tamam. So price ka ada buy gareynayso waa meel discount waa inaad ka buy gareysaa hadaa sell gareynaysana waa inaad ka soo sell gareysaa meel premium tamam. Okay 1 hour ka maxaa haysanay 1 hour ka waa kana labadan qodob hal qodob ka haysan 1 hour oo ah 1 hour order block plus 1 hour value gap. Yes labadaas qodob aan ka haysan 1 hour order block iyo 1 hour value gap. So haddii 4 hour kan oo week lagu soo qaado oo week lagu jabiyo macnaha in la ixtiraamaa 1 hour value gap kan oo aan body lagu jabinin inaan lagu jabinin. So sida ma dhacday mise ma dhicin haddaan eegi doonaa insha Allah. Okay after kiisan idin tusaa marka waa kana 1 hour ka caadi xagga idin ka tusi doonaa 4 hour ka day 4 hour waxa la ixtiraamay CRT ay dhacay value gap kan oo entry igaaga baxay qodobka labaad ay guuleystay scenario koowaad ay guuleystaan scenario labaadna wuxuu ahaa 1 hour value gap plus 1 hour order block. So scenario 1 ka ay guuleysto oo 4 hour kan ka haysto value gap 4 hour value gap kan ka haysto. Okay that's cool. Marka waxaan tageynaa horta before after ka idin tuso intaan ku degdegin trade kii idin tusin. So waa kana trade marka la active grade drawdown yara la geli. So hadda ICT taa waa ina before after la imaada labo waa kana waa ii socdaas
darow dhankan kasoo baxooyaa almost profit ay socdo TP lagu dhacay soo ma jeedin so trade-ka si qurux badan ayuu u dhaqaaqay so before and after ka waa kana 1 2 3 hit to the TP cadeen kale waa u baahan tahay okay nagu celi training view-geena okay training view-ga 1 hour kan ka tegeynaa marka 1 hour kan tegeynaa 1 hour sidii aan u sheegno waxba u jiraan 1 hour maxaa ka dhacay so mid aan rabna ogaano ina ogaano aan rabno waa mid so waxa idin dhahay 1 hour fair value gap-ka ayaa la ixtiraami doonaa haddii 4 hour kan la ixtiraami waayo oo 4 fair value gap-ka 1 hour fair value gap plus 1 hour order block meesha ku beegan hal yimaado kadib fursad baha igaaga baxdo buy inay bixis waan ogaa okay waxaan target gareynaa order block gaas aan target gareynaa laakiin ka suka target gareynaa in 20 baan ka raadiyaa ka badan kama raadi okay warnimayo buy ma baxay mise ma bixin waxa idin sheegaa waxa uu iska ciyaaraya so aan si fiican idin kugu muujiyo ay waxa idin geenaa sawirka kale 1 hour ka idin geenaa 1 hour ka idin geenaa okay waka before 1 hour ka intoosan macnaha CRT waxyaabo 4 hour ka ii dhicin oo 1 hour fair value gap kana imaan aanan dhihin oo price ka uusan dhaqaaqin analyze ka aan sameeyo waa kana hay after maxay iga haysaa ay sida u sheegno wax muu dhacay mise muu dhicin video-ga boos dheh xagaan way u adag tahay gallery-ga wax ka tusaya iyo training view so video boos gray isla eg marka hadda fursad la socoto so I don't care about one entry maalintii one entry SL or TB I call it today how I entry kala ma qaato one entry aan raadiyaa okay waxa la ixtiraamo marka qodobka 4 hour ka la ixtiraam 4 hour fair value gap 4 hour CRT haysta candle range theory haysta then CRT-ga inuu ku tiirsan yahay ku dhahay BDRA ama point of interest so point of interest waxay noo ah fair value gap kan of hour boom entry-ga noo baxay waa ka that's cool marka asxaabta qaaliga ah waxa waaye adiga entry-ga saas oo noogu baxay 5 minutes aan tageynaa so 5 minutes maxaan ka aragnaa so marka CRT-ga uu dhacay shift aan raadsanay so shift-ga dhowr meel aan ka dhigi karnay halkan shift waa ka dhigi karnay halkan meesha hadda ka qaato waa shift ahaan ugu qaatay dadka halkan ka qaatay shift u tahay fair value gap kan entry-ga laga active gareeyay so position-ka fursado badan oo dadka siiya position-ka fursado badan oo siiya dadka inta ka qaataan fiirinaa afkaan fair value gap-ka ana hoos aan ka qaatay afkaan fair value gap-ka 20 biib ma heleen yes way heleen that's cool marka waxa waaye almost SL-keena waa SL-keena ujeedaa waa 10 biib target-keena 20 biib ka badan ma doonin ACT hadana qofka wax ka badan raadinaya asiga u taala okay marka sidaas uu entry noogu active garoobay asxaabteena before after kana idin tusay hadana idin kugu celinaa ana cadeena wata cadeen iska ma ciyaaray ma garteen cadeen ayaan wataa so qofka trader-ka oo inoo la imaada cadeen trade-kan long position wala saari karaa short position wala saari karaa so cadeen ah inuu trade-kan qaatay waxaan cadeenahay before after okay waa kana entry-ga ka qaadanay halkan shift nooga dhacay fair value waxa ku qaadan afka hore breaker block aan ka qaatay sorry fair value gap kana ku qaataan dhehe ani soo dhaweeyo shift halkan nooga dhacay fair value gap kana ku qaatay waa la active gareey waa laga soo noqday laakiin halkan order block ayaa order block-gaas la tagay soo ixtiraamay that's cool saasoo price ku kacay so no problem muhiimada waxa waaye shift-gu ii saxsanaa meel point of interest waa entry waa ka qaatay that's cool ayo waa kana order block-ga la ixtiraam waa la soo noqday hadana waa la soo kacay على كعي عندنا سلكة محوصون هذا أوردر بلوغان واحترامه بايقان لو عليه أوكي let's go
boom waka shift within fair value gap shift within fair value gap macnaha big move within fair value gap lagu soo noqon artist back marka price saas u socdaa marka insha Allah kusoo biir telegram keena wax un baa ka faa'iidi doontaa biidnillahi kariim waxa waaye midda kale muuqaalkan sare u qaad like gareeya u share gareeya saaxiibkaaga jecel inuu ka faa'iideysto barnaamijkan xiiseeya marka hayga hagran like ina ii saarto mid ka codsanayo waaye soo muuqaalkan sarena like sare u qaadaysa marka midda kale groupkan kusoo biir insha Allah telegramka biidnillahi kariim mentorship waa bixiyaa qofkii mentorship rabo in la mentorgareeyo waxa si private ay la soo hadlo telegram groupka kusoo biiro adminka qofka la soo hadlo soo aniga adminka insha Allah ila soo xiriir qofkii la mentorgareeyo rabo insha Allah waa wada macaamil doona insha Allah waxaan rajeynaa caafimaad farxad noocyada kala duwan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.